tirada wakiilada warshadaha soo saara dhuxusha saliidda iyo gaasta ee ka qaybgelaya wadahadallada cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ayaa farjirbaarmay marka loo eego sanadadii hore. ku dhowaad 2400 oo qof oo ka shaqeeya ama xiriir leh warshadaha dhuxusha saliidda iyo gaasta ayaa loo diiwaangeliyey inay goobjoog ka yihiin wadahadallada cimilada ee COP28. tiradani waxay ka badan tahay wadarta guud ee ka qaybgalayaasha shirka ee ka kala socda 10 wadan ee ugu nugul isbeddelka cimilada. shirkii COP26 ee lagu qabtay Glasgow waxa joogay ilaa 500 oo ergey oo ka socday warshadahan, halka shirkii sanadkii hore ee COP27 ee lagu qabtay dalka Masar ay tiradaasi korodhay oo ay gaadhay 600 oo wakiil ah. COP28 waa shirkii ugu weynaa ee cimilada ee abid la qabto, iyadoo ilaa 97,000 oo isugu jira siyaasiyiin, diblomaasiyiin, saxafiyiin iyo dhaqdhaqaaqayaal deegaan loo diiwaangeliyey inay ku sugan yihiin kulanka. geesta kale, wadamada iyo shirkadaha saliidda ee ka qaybgelaya wadaxaajoodada cimilada ee qaramada midoobay ayaa ballan qaaday in ay horumar weyn ka samayn doonaan wax ka qabashada kuleylka caalamiga. ku dhowaad 100 wadan ayaa ballan qaaday inay 3 jibaari doonaan isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo ee adduunka marka la gaaro sanadka 2030. 50 shirkadood oo soo saara saliidda iyo gaasta oo ay ku jirto shirkadda weyn ee Sacuudiga laga leeyahay ee Aramco ayaa iyaguna sheegay in ay joojinayaan soo saarista gaasaska kululeeya meelaha marka la gaaro sanadka 2050. kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha cimilada ayaa si taxadir leh u soo dhaweeyay ballanqaadyada in kor loo qaado adeegsiga tamaraha la cusboonaysiin karo, laakiin waxay walaac ka muujiyeen fulinta ballanqaadyada shirkadaha saliidda. ugu dambeyn, shirka isbeddelka cimilada adduunka COP28 ee ka socda Dubai oo galay maalintiisii 6 ayaa la filayaa in maanta diiradda lagu saaro wax ka qabashada arrimaha iyo xalalka la xiriira tamarta iyo warshadaha.